November 2018 ayay la soo wareegtay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida eedka dhan ah eedeysana Cabdirasaaq Xuseen Tahliil in Carol Geele. eedeysanaha ayaa xilliyo kala duwan xukumeen maxkamadaha ciidamada qalabka sida ee Puntland kadib markii ciidamada BSF ta soo qabteen iyagoo la xiriirinaya maleeshiyada Al-Shabaab iyo qaraxyo la eegtay dowladda hoose iyo isbitaalka Gaalkacyo ee gobolka Mudug. qareenada xukunsanaha ayaa rafcaan ay ka soo qaateen xukunada maxkamadaha ciidamada qalabka sida ee Puntland hordhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee heer federaal waxaana eedaasi timid xafiiska maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee federaalka ee xaruntiisu tahay caasimadda dalka. intaasi kadib ayay maxkamadda isku howshay kiiskan waxaana dowladda dhexe ay u dirtay Puntland xeer ilaaliyaal ka socda federaalka si ay u baaraan wixii dhacay ee la xiriira rafcaanlaha hore loo xukumay. markii ugu horeysay ayaa kiiskan saakay dacwadiisa laga furay Muqdisho si isku mid ah ayaa fursad loo siiyay dhinacyada dacwadda kadib markii garsoorka maxkamadda sare ay u jeediyeen eedeysanaha ay soo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida. waxa ku banaan saddex doormoodo waan galay oo qiraal ah ma galin oo diidma ah doodan ka qaba oo ah faahfaahin bixinaa adirdaaq eedaas ma gashay ama ma galin doodan ka qabtaa. gaashaana dhexe Axmed Jiino Xasan ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka horjeediyay dambiyada loo haystay in Carol Geele. waxa uu sidoo kale maxkamadda weydiistay in loo ogolaaday inay u yeerto markhaatiyaasha ku xusan eediisa. intii ay socotay dooda ayaa la isdhaafsaday doodo ku qotomo wax ka bedelka qodobada dambi ee lagu soo eedeeyay eedeysanaha. qaadka qaranku laba qodob ku kooban yahay labadaas qodob waxa waaye waxa loo yaqaan ad-da'nu 'ala al-bayyina markhaatiga in la duro ama cadeymaha la keenaya in la duro waa qodobka ku xiga waxa waaye dalabul baraa'a inuu berinimo codsado oo eedeysanaha taagan hadii cadeyn la waayo cadeynta cadaawayso in berinimo uu codsado labadaas qodob ku kooban yahay sharcigana maxkamadda nooga aqoon badan labadaas qodob wixii ka baxsani waxaanu aragnaa inay yihiin walax ka baxay jurisdiction-ka ama yaani xuduudda uu leeyahay qareenku wax ka baxay aanu arkayna anagu hadana xafiiska xeer ilaalinta howlaha iyo waajibaadka xeer ilaalinta eedda xeer ilaalinta aanu soo gudbinay maxkamadda xeer ilaalinta ciidanku uu soo gudbiyeen oo halkan ku xadidana waxaan filayaa arkaantii iyo shuruudii loogu talagalay oo qodobka 71 uu sheegayo iyo qodobka 70 ay ka hadlayaan inuu yahay arinta inay waafaqsan tahay. qodobka ugu horeeya eedeysanaha magaciisa in la faahfaahiyo kan ku xiga dambiga iyo qodobka sheegaya in la faahfaahin laga bixiyo. lambarka ku xiga waxa waaye in la cadeeyo waqtigii ay wax dhaceen waxa kale ku sii xiga maxaa la yiraahdaa waqtiga iyo goobta way isku xiran yihiin yani wax isku xiran waay. dhinaca kale qareenada u doodaya eedeysanaha ayaa ku andacooday inaysan dhameystirnayn cadeymaha dambi ee loo haystay eedeysanaha ay difaacayaan. waxay sidoo kale xeer ilaalinta weydiisteen inay kala noqdaan eedeysanaha qodobada ay ku soo eedeeyeen. waa 2221 maxay tahay waxaa lagu adeeg karaa dadka bugaad ah dad bugaad ah oo dawladda ka go'ay oo hub meel taagan oo dagaal wada oo dirsan bugaad maaha dukaan u gadaa alamtaara dukaan alamtaara nin gadaayay gaalkay dhaxdaada in la rabo bugaadata bugaad waxa la yiraahdaa nin dad go'ay oo dawladda ka soo horjeeda oo hub haysta oo loo tay karaa la yiraahdo ma ku go'an nin sokor bariis la gadaayo gaari oo la tis suuqaya bugaad ma ku talami karaa. waxaan leeyahay marka waxaa la rabaa qofka markii la eedeynayo al-hukmu yata'allaqu bi-iqrar xukunka wuxuu ku istaagi karaa wuxuu ku istaagi iqrar qiraal ama shahada in qiraal oo yo ana galay dambiga uu qofku leeyahay waa uu xukumi karaa qofka in shahada cad lahaayo wastashhidu shahidayn min rijalikum laba qof oo waliba waa lagu soo daray oo labada qof waxa laba qof oo la og yahay raay laga yahay. gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liban Ali Yaro ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda wuxuuna ka dalbaday xafiiska xeer ilaalinta inay soo dhameystiraan cadeymaha dambi muujinta sida markhaatiyaasha ku xusan ee dooda. waqtiga la galanaana maxkamadda dib soo sheegayso billahi tawfiiq. xiriirka wada shaqeyn ee ka dhaxeeya hay'adaha dawladda ee heer maamul goboleed iyo dawladda dhexe ay ku tusinaysaa arintan heerka wanaagsan ee uu marayo. waxay tani tusaale u tahay xiriirka wada shaqeyn ee u dhaxeeya hay'adaha cadaaladda dalka. Abdulqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.